hoteelka Arbaz ayaa dhaca xuduudda ay wadaagaan dalalka Faransiiska iyo Switzerland waxaana hoteelkan uu kala qaybsan yahay labada dal. hoteelkan waxaa iska leh ganacsada Buntwan oo ka soo jeeda dalka Faransiiska waxaana ninkan uu ka hirgeliyay hoteelka xuduudda labada dal si uu uga macaasho dadka ka gudbaya xuduudda caalamiga ah ay wadaagaan dalalkaasi. sidoo kale dadka wax ka cuna hoteelkan ama adeegsada waxaa ka mid ah ciidamada ilaalada ee ku sugan xuduudda labada wadan waxaana askartu ay kala fadhiistaan dhinaca mid kasta xuduudda dalkiisa xiga. hoteelkan ayaa horay u sababay muran u dhaxeeya labada dal oo ku aadan halka uu ku yaalo, balse waxaa lagu heshiiyey in hoteelkan uu u qaybsan yahay labada dal, qayb ka midana ay tahay dalka Faransiiska halka qaybta kalena ay tahay dalka Switzerland. balse arrinta la yaabka leh ayaa ah in hoteelkan ay ka jiraan laba sharci. tusaale ahaan qaybta dalka Faransiiska waxaa lagu ogol yahay in la isticmaalo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan, balse dhanka dalka Switzerland xiga ayaana lagu ogolayn inaad cabto ama aad isticmaasho maandooriyaha. markii ugu horeysay waxaa dhidibada loo taagay hoteelkan bishii December sanadii 1862 waxaana milkiilaha hoteelkan uu bixiyaa canshuurta labada dal iyadoo qayb ka mid ah hoteelka ay canshuurto dalka Faransiiska halka qaybta kalena ay canshuurto dalka Switzerland.